waxaan halkan idinku soo gudbinayaa go'aamo ka soo baxay golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo aaminsan mabaadi'da nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka, kana soo horjeeda wax kasta oo wax u dhimi kara nabadda iyo deganaanshaha, isla markaana ka soo horjeeda xagjirnimada iyo cid kasta oo taageerta xagjirnimo. Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo isla markaa tixgelinaysa cilaaqaadka taariikhiga ah ee dhaqan, dhaqaale iyo siyaasi ee ka dhexeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadamada khaliijka, waxa ay golaha wasiiradu maanta ay taariikhdu tahay 10 bisha 6 Juun 2017 isugu yimaadeen shir aan caadi ahayn kaasi oo gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. shirka goluhu wasiiradu wuxuu ku saabsanaa khilaafka siyaasi ee ka dhaxeeya dalalka khaliijka iyo mowqifka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qaadanayso. sidaa darteed waxaa ka soo baxay golaha wasiirada go'aamadan: 1. in Jamhuuriyadda Soomaaliland si buuxda u taageerayso mowqifka iyo aragtida ay ka qaateen dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadku khilaafka siyaasiga ah ee u dhaxeeya iyaga iyo dalka Qatar. 2. in laga bilaabo maanta cid aan ogolaansho ka haysan Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay isticmaali karin marina karin hawada Jamhuuriyadda Soomaaliland. 3. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u madax bannaan tahay cirkeeda, dhulkeeda iyo baddeeda. Soomaaliya kama taliso, mana bixin karto ogolaansho cidii ku isticmaali karto dhulka iyo badda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cirka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waa mahadsantihiin.